Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacan oo wanaagsan idin lahaan dadka hawada naga daawanayo halkaani waa Caawa Media kusoo dhawo walaal muuqaal cusub. Fadlan walaal haddii ay tahay markaaga koowaad fadlan subscribe saar kambalelkana furo si aad u noqoto saaxiibka koowaad ee Caawa Media. Haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogaaga iyo dhiirigelintaada aan kala go'aanayn. Muuqaalkeenu maanta wuxuu diiradda saari doonaa dadka magaalada Muqdisho ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa cabasho aad u weyn ka keenay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku labisan bastoolado iyo hub kale adeegsanayana mootooyinka loo yaqaan nooca bajaajta ama saddex lugaaleyda cidba si ay u fahmayso. Dadka magaalada Muqdisho ku nool caasimadda Soomaaliya ayaa cabasho ka keenay dadkaasi habeenkii u geysta dhaca iyo boobka aan kala joogsiga lahayn oo dadka kuwa qaarba ama dhalinta hubaysan qaarba ay dilaan dadka markii ay isku dayaan inay ka dhaga adeegaan amarkooda ah inay soo dhigaan wax walba ay haystaan. Degmooyinka qaar sida Yaaqshiid, Marweyne iyo Boondheer iyo kuwa kale ayaa habeenkii loo geystaa dhac dadka ku nool magaalada Muqdisho si gaar ah degmooyinkaas. Shacabka Muqdisho waxaa dhalinta ama dadka waay aragga ah ku nool Muqdisho ay kula taliyeen inay ammaankooda sugtaan waxa ayna si gaar ah u siiyeen qodobo saddex ah oo haddii ay ku dhaqmaan ay u badan tahay inay badbaadaan. Waa tan koowaad inay u dulqaataan dhaca habeen iyo maalin ku socda ee ka dhaca inta ugu badan degmooyinka Muqdisho ilaa alle xal uga keenayo. Waa tan labaad in ay si cad banaanka u yimaadaan oo ay u sheegaan hay'adaha ammaanka oo wakiilka ka ah amnigooda inay ku fashilmeen mas'uuliyaddii ka saarneyd amniga ilaalintiisa. Tan saddexaad waana tan ugu dambeysay in ay is abaabulaan oo ay amnigooda sugtaan si ay u badbaadsadaan naftooda iyo maalkooda dariiqyada loo taagan yahay 24 saac maalin kasta. Muddo aan ka yarayn 5 bil magaalada Muqdisho dadka ku nool waxa ay wajahayeen dhac xadkiisa dhaafay oo aad u baahsan iyo in aysan dawladdu ka bixin jawaab qalanta. Dad badan ayaa loo dilay, qaarna waa loo dhaawacay, qaar kalena waa ku cayrtoobeen dhaca Muqdisho ka socda oo aan kala joogsiga lahayn. Haddaba daawade adigu fikirkaaga saliimka ah nugula wadaag qaybta hoose ee commentiga. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.